jawhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle lagu soo dhaweeyay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble soo dhaweynta kadib ayaa waxa uu shir jireed ku qabtay madaxtooyada magaalada Jowhar isaga oo sheegay in xildhibaanada qaar dowlad goboleedka Hirshabelle ay wadaan afgambi ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweyne Cosoble waa kan madaxweynaha oo ka hadlaya arrimahaasi arrimaha cadow ku ah waxay ka shaqeeyeen inay mooshan keena balse xaqiiqda dhabta ah markaan ka hadlo waxa waaye sida aad aragtaan dhinacyadeen waxa ay dhinac taagan oo hareeraha iga taagan waa xildhibaanadii dowlad goboleedka Hirshabelle waxa waaye marka mooshanka la keenay iyo waxa la yiri go'aan waayo waa lagu dhawaaqay intaba waa baadil waana wax kama jiraan waxa la jabiyay waa dastuurka أولاً قف كليجي دولة قوان سامينا برلمان انت هرف ريستو حلي بعنا ما به كرو قوان هذي مدة لبعض وحيتها حار يا نظام أيام ناقرة دولة قبلة دحان دستوركم الجار أيام لا قعدنا وحيتها يا حراسات كمان موشن مركز لقى كينا مدحوينه أولاً مدحوينه مركز موشن لقى كينا دستور كيكون قرنتا قضبضة لو مسوق بسنك وحنا الحين أو إذا واضح كمجدا قضبضة يا جو آمنة شر قدوم كيقدي كفلنت برلمان كأي حد لقوا آمنة إن قضبضة دستوري صحيح موشن كانوا حق يهي لا له رجينا يا برلمان وحنا مدحوينه ريديكا لحدا يلح حل بالنا من عيد التاريخ نول بوح اللي بالنا لا قنصي سفيرين دعاء كأديكوا أفتي لكوي دي هوبية قاعد أقول إيه ده وايد جور وجوجا وحانا محوها شرط يقول وزير ده نوع باللامن دون وزير ده والله حسابته من دون حكومة عدي إسكاز الشيء وإدل أحسن النص وبسيط هو كتير بدن أيام جوجا برا كان كتير سوا حلكة بدله أنا وبين أبور مرة waxaan rabaa xildhibaan walba magaciisa aqoonsigiisa inaad waraysataan tiradooda xisaabisaan kala saartaan oo kala jartaan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle hadday 66 u soo hartaan nimankaas waxay ka hadleen waa sharci walow ay sharcigu waafaqsanayno tobankii maalmood anigana aan leeyahay hadday 66 meesha soo istaagtay aysan jirin oo hadda hortiin xildhibaano ka marqaati kacay waxa inay soo ku lahayd hadday taagan yihiin hadda waxaad yeelaysaa caalamka qaar kale oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay soo dhaweeyeen hadalka madaxweyne Cosoble ayagana waxa hadaladooda kamid ahaa waxa meeshan maanta jirana xaqiiqda ay cid kasta aragto hadii 20 xildhibaan inta meel isku soo xirtay la yiraahdo waxa fadhiya 60 xildhibaan fadhida maanta ayaa la arkayaa waxa meesha ka jira xaqiiqdana cid kasta way u joodaa waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeyno maanta sideetan xildhibaanadii baarlamaanka konton markii halkan ay joogto soddon iyo xoogaa xildhibaan ay xaq u lahayn inay keenaan mooshin lagu ridi karo madaxweynaha waxaa loo baahan yahay in la helo 66 xildhibaan meeshaas waa khayru sharci waxaan leenahay dastuurka hala ilaaliyo nidaamka hala ilaaliyo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ka soconayay mooshinno ay wadeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo sheegay in ay kalsooni ay kala laabteen madaxweyne Cosoble Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Beeq Alfa TV-ga caalamiga ee SAB magaalada Jowhar.